noloshu waxay ka kooban tahay laba arrimood oo kala ah go'aano iyo natiijada go'aanada. Alle subxaanahu wa tacaala wax walba sabab ayuu u yeelay. Sababtaasi waxay noqon kartaa go'aan. Go'aankaasi marka aynu gaarno ayuu Alle inagu arsaaqa ujeedka aynu go'aanka ku lahayn. Tusaale ahaan go'aan aad gaadhay ayaad ganacsi ku abuurtay, kadibna Alle wuxuu kugu arsaaqay inaad maalqabeen noqoto. Go'aan aad ku guursatay ayuu Alle ubad kugu siiyey. Go'aan aad dhakhtar ku aaday iyo mid aad jimicsi ku samaysay ayuu Alle kugu siiyey caafimaad. Sababtii ayaad la timi oo go'aano ayaad qaadatay sida guur, beer, shaqo, daawo iyo wixii la mid ah. Dabeedna Alle wuxuu kugu arsaaqay midho, ubad, lacag iyo caafimaad. wax kastoo aanay cidi kugu qasbin oo ka yimid habka aad u fikirayso iyo amaba aad u dhaqmayso waa go'aano aad qaadatay. Waxaa ka mid ah carrada raagta, aarsiga farxadda, samafalka iyo cafiska. Intuba waa go'aano. go'aan qaadasho la'aanta lafteeda ayaa ah go'aan. oo sidee ayay u tahay go'aan? Marka aad tidhi go'aan waan qaadan kari waayey ayaad qaadatay, laakiin go'aanka marka qaadatay ayaa ah inaad go'aan qaadan. qasab mar kasta noloshaada go'aano ayaad qaadan doontaa, kuwa aad ugu tala gashay iyo kuwo kaleba. Antonio Robbins ayaa wuxuu yidhi daqiiqadaha go'aan qaadashada ayaa qadartaada qaadan kara. markii ugu horreysay aan maqlo dhegta ayaan taagay. go'aanka qaadartana waxa ka beddelaya waa kee, laakiin bal u fiirso diinteenna. diinta suubani inooma ay sheegin qofka qaraabada xidhiidhiya in cimrigiisa kordhayo. cimriga miyaanan qadar ahayn? camalku waa go'aan. haddii aad khayr fasho iyo haddii kaleba natiijada iyo abaalka Alle ayaa kula kulansiin doonaa. saas daraaddeed awoodda go'aanku waa mid nolosheenna qaabaysa. waa sabab Alle inoo sakhiray oo nolosheenna guul iyo guuldarraba u horseedi kartaa, tahayna inaynu dhugno oo yeelanno goor kasta. waayo in badan oo ka mid ah go'aanada aynu qaadanno kama warqabno, waxaase la arki karaa halka aad kolba joogto iyo natiijooyinkaaga. marka hore aynu kala saarno farqiga u dhexeeya go'aan qaadashada decision making iyo go'aan qaadasho ama decision taking. inta badan waxaa caan ah go'aan qaadashada. taasna waxaa keentay mowduucan oo inta badan loo qaabeeyo hab mu'asasadeed sida shirkado ganacsi, dal, ciidan iyo kulo mid ah kuwaas oo baahan go'aan gaadhi. sababtoo ah arrinkooda qof kama oga ee wax ka dhexeeya koox, dad ama ummad. sidaas daraaddeed waxaa qasab ah in go'aanada isbeddelka lagu higsanayo laga wada tashado, la hubiyo xirfad iyo aqoon heer sareysan lagu saleeyo. go'aan gaadhistu marka wax ficilkiisa aan lagu degdegayn marka la isla meel dhigo ee la isla qaadanayo. markasta arrinku yahay isbeddel shakhsi ama wax naftaada, mustaqbalkaaga iyo aakhiradaada kuseeya, waxaad u baahantahay wax go'aan qaadasho ah. waayo labada tallaabo ee hore ayaa ka dhigan inaad go'aankii soo gaadhay. mar haddii fikirkaagii wax iska beddelay, jidka uu doono isbeddelkaasi ha kugu soo maree, islamarkaana aad heshay sabab xooggan oo ku dhaqaaqisa. waxa xigaya inaad qaadato go'aan. macnuhu waa haddii uu yahay wax la xoojinayo sida caado ama balwad u xun, jooji. haddii uu yahay wax wanaagsan oo ay tahayna bilow si go'aankaagu u midho dhalo. ina sii waarana waa inaad qaadato 3 tallaabo ee kala. go'aanada shakhsi ah maaha kuwo adag oo qarash iyo qorshe badan u baahan. kaliya waxaa ka xiga maskax fikirtay, sabab aan heshay iyo go'aan aad qaadatay. ururada, shirkadaha iyo waddamada waxay u baahan yihiin koox ka hubaysan aqoon iyo xirfad sare. ujeeddada aynu rabno inaynu muujinaana se waxay tahay go'aanada shakhsiga ahi maaha kuwo adag oo qarash iyo qorshe badan u baahan.